madaxweynuhu iiga jawaabay runtii anigana jawaabtu isoo gaadhay dadka qaar waa laga yaabaa inay aragtiyo kala duwan leeyihiin laakiin aragtidayda aniga inay jawaabtu ina soo gaadhay ana ku qanacsanahay jawaabta dhibaatada jirta ee dareenka igelisay haddii aanan deegaanka soo marin waxaa laga yaabaa inaanan arkeen oo aanan dareemin laakiin dhibaatada sool iyo sanaag iyo cayn ka jirta waxa weeye inay yihiin dhul lagu muransan yahay dhulka lagu muransan yahay xuquuqdoodii baa luntay waxay ku jiraan waxay adduunka dhan way ka dambeeyaan taa darteed ayaa aniga qiiro gaara igelisay maadaama deegaankii joogo aan arkayo dhibaatada dadka haysata iyo heerka ay meersiisan yihiin waxaana fiicnaan lahayd mas-uuliyiinta inoo imaanaya oo dalkeena ka mas-uula inay ka yimaadaan deegaankii ay soo arkaan because qof aan soo arkin dhibaatada waxaad malaynaysid iyo waxaad aragtid isku mid maaha waxaan jeclahay halkeenan inaan baaq u dirno aan u dirno qof kasta oo damiir leh oo mas-uula oo ka mas-uula deegaanadaas ama ha ahaado qofka dadka degan ama ha noqdaan dadka Soomaalinimada iyo Islaamnimadu inaga dhaxayso inayna xaq ahayn ina dhul la dhaho waa disputed area xuquuqdii dadkaasi ayna gaarin ay noqoto meel mar walba dhibaatadii ka taagan ay noqoto ma garanayo waxaan ku sifayn karo ma garanayo abadan waxaan ku sifayn karo waxaana dambiga iska leh mas-uul kasta oo deegaanka ka yimaaday oo aanan xil iska saarin oo aanan fahmin meesha dhibaatadu ka taagan tahay ma eedaynayno cid kale inaga mas-uul ka ah khaladka ka jira waxa ka mas-uula qof kasta oo ka aamusay arintaas inaan ka aamusno horta waxaan ka raali gelinayaa in madasha laga dhigay meel aniga la igu mahad celinayo hadana wax la igu mahad celiyo isbitaaladan gabdho khayr Allah siiyay baa dhisay oo anigu aan laaha qof la shaqeeyaan kamid aha sidoo kale kelmadana waxay ahayd dareenkay aan qabay oo qof walba dadka ah ila qabaan sheegista aan sheegayna waxay ahayd fursadii baa ii saamaxday inaan madaxweynaha weydiiyo because waxay isu kay gali weyday marnaba inaan noqono siyaasadana reer inooga mas-uul yahay wixii ah wax qabada maanta hadaan u tago lay dhahayo wax qabadkana reerka kala kaaga mas-uula aqli gal ma aha inaan anigi kala qaybsanahay madaxayga dhinac jiro lugahayga qaybtaydi kalena ay dhinac kala jirto waa waxaan suurtagal ahay xaqiiqatan waa wax aad iyo aad qofku inuu uga gubto oo uga dhibtoodo ay tahay waxaan leenahay oo aan mas-uuliyadda saarayna cuqaasheena waxaan leenahay Puntland haday tahay wadan aan wada dhisanay oo ay tahay meel aan wada leenahay ha muuqato inaan wada leenahay ha muuqato inay tahay wax la wada leeyahay macna iima sameynayso 17 xildhibaan iyo 20 wasiir iyo madaxweyne ku xigeen in la ii sameeyo hadaan deegaankayga ay waxba ka muuqanayn macna iima sameynayso waxa macna ii sameynaya markaan ka arko wax tarkeedii dalkaygii oo wax haysta markaan ka arko hadaan arko markaan isu eego deegaamadii kale iyo deegaankayga sidoo yahay wallahi ilaah baan ku dhaartay isma celin karo qiirada ay hayso waxa keenaya deegaankayga sidoo u baaba'san yahay iyo dadkeedii sayna u ogeyn waxa ka daran inayna ogeyn musiibo weey inuu qofku ogeyn waxa uu qabo iyo sida uu yahay waa aad iyo aad bay dhibaato u tahay waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliya waxaan leeyahay xildhibaanadeena waxaan leeyahay golaha baarlamaanka waxaan leeyahay oo aan la hadlayaa international community oo naga dhigay disputed area no aqoonsan disputed area inaan ka dagaalano qof kasta oo Soomaali ah oo iimaan qaba oo muslim ah inuu ka dagaalamo in dad deegaankeena alla dhaho waa disputed area oo xuquuqdoodii oo dhan ay lunto oo la noqdo ay ma garan karo xaqiiqatan عاطفة بيقاضي أمورته سيدا عاطفة إن لو حكومة ولا جف يعني هي لكن دبعت هذا تاجن أيام مر والبكو درنسين يسوق وحس كارد جيسا قف عاطفية سؤال شو مدحوينها وحن أفهمي إنه جواب تدي إسيء وأنا إيري جواب تدي بو إسيء وحو إسيء
وان اوغاهي مدحوينها مسؤولية باسارن وان اوغاهي انو ضد سوماليدو waa dad kala cararaya isku haya waan aaminsanahay maanta inuu shalay madashi si xooga lagu soo qabtay oo ay ahayd in maanta ay heshiisiyaan aqli gal ma aha maanta inuu eray xanaf leh ama eray uu aniga igu taageerayo inuu dhaho oo ay keento kala carar dambe waa dad Soomaali ma qaano waa dad un la isku dhajinayo ma aha dad ayagu dantoodii iyo qaayo waxoodii muhiimadoodii ka fikiraya adduunyo aakhiro way kala badan yihiin eraygaas dadka daa'iman waan ku celceliyaa adduunyo aakhiro way kala badan yihiin waxa inoo dambeeya waa qabri yar waxa inoo dambeeya inuu ilaahay naga xisaabinayo kullukum raaci wa kullukum mas'uulun can raciyatihi qof kasta oo Soomaaliya oo mas'uula dadkaas dhibban meel kasta ay joogaan ma sheegayo Soomaaliya sanagi cayn kaliya haddaynu iska saarno qabyaaladda haddaynu iska saarno waxyaalaha kale ee inaga ina si kala diraya waxaan u maleynaa in wax inoo qabsoomi lahaayeen waxaana huba reer Soomaaliya sanagi cayn hadday iyaga laftoodu si nadiifa oo daacada ay arrimaha kale ugu la istaagaan dadkooda kale qof walba Soomaaliya uu ka naxo Soomaaliga kale ay Soomaalinimadu inagu jirto runta ah waxaan u maleynaa in wax badan inoo qabsoomi lahaa